إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون shan hablood oo Soomaali ah ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay magaalada Minneapolis wada gaari oo si xawli ah gaariga ku wada isla markaana ka gudbaya traffic light oo dhankiisa ka xirana ayaa waxa uu ku dhacay gaari ay wada saarnaayeen shan gabdhood oo Soomaali ah waxana goobtaasi ku dhintay isla shantii gabdhood ee Soomaalida ahaa ee gaariga wada saarnaa wararka qaar ayaa sheegaya in saddex kamid ah gabdhahani ay ahaayeen walaalo waxana wararka intaasi ay ku darayaan gaariga ku dhacay ee dhibaatadaasi geystay inuu ahaa gaari la soo xaday isla markaana booliiska ay cirsanayeen si ay u soo qabtaan darawalka mashaqadaasi geystay ayaa goobta iskaga baxsaday balse booliiska Minneapolis ayaa markii dambe soo xiray kaamiradaasi sida ah ee ku xiran wadooyinka Minneapolis qaasatan kaamirada ku xirneed goobta ay mashaqadu ka dhacday ayaa waxa ay qabatay xiliga wadahani gaariga sida xawliga ah ku waday uu ka gudbayay traffic light-ka oo dhankiisa ka xirnay isagoo markaa ka soo degaya highway-ga waxaana la sheegay in waqtigaasi ay ahayd waqtiga booliiska ay cirsanayeen waana waqtiga shilka uu dhacay ay ku dhinteen shanta gabdhood ee Soomaalida ahaa